بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام قاليه كدب aad baan idin salaamay ardada qiimaha badan waxaynu sii wadanaynaa insha Allah maadadeennii ee socotay ee ahayd cilmi nafsiga ama psychology-ga haddaynu dib ugu yara laabano mawaadiicdii aynu soo qaadanay waxyaabaha isweydiinay waxa ka mid ah maxaa la yiraahdaa psychology. This is the first question I need that every single person in the class must know. Waxa muhiim ah arday kasta oo fasalka ka mid ah inuu cilmi qoto dheer u leeyahay qeexitaanka maadadu ay leedahay iyadoo waliba laga doonayo soo ka faa'iideysanaya qeexitaanada aynu soo baranay in asaga uu la yimaado qeexitaan asaga u gooni ah. Hore waxaynu u tilmaanay maxaa la yiraahdaa psychologists waxaa la yiraahdaa dadka baranaya maadada tani ama hore u soo bartay sida awgeed adigu waxaad ka mid tahay cilmi nafsiyahanadu waxaana markasta lagaaga baahan yahay inaad odorosto cilmi ka baxsan waxa lagu tilmaamay ama waxa lagu sheegay. Fine. Maxaa la yiraahdaa psychology? Ereyga psychology markaad eegtaan waxa uu qoran yahay sida tan. Fine. Waxa uu ka kooban yahay saddex shay. waa qaybta koowaad oo prefix-ka iyo suffix-ka iyo combination hore ayaan u soo qaadanay waa tilmaamaya qorax psychology marka aynu eegno waxa uu ka kooban yahay laba erey oo Greek ah waxaan rajaynayaa inaad idul socotaan labada erey maxay kala yihiin waa maxay waa psycho iyo logy. Fine waa psycho iyo logy waa two Greek words psycho iyo logy qof kasta oo weydiinaya waan kaga baahanay jawaab qorax. Fine waa maxay marka qeexitaanka guud ee psychology ereyga psychology waxa uu ka kooban yahay laba erey oo Greek words ah ee la kala yiraahdo sida aynu tilmaanay psycho iyo logy mid kasta oo kamid ah ereyadan micno ayuu leeyahay waxaynu tilmaanay aynu soo qaadanay kan ugu horeeya maxaa la yiraahdaa psycho asalkiisu wuxuu ahaa psych. Fine markuu Greek word ka ahaa marka aynu bedelnay English word kan waxaan leenahay waa psycho. Ereyga psycho maxaa la yiraahdaa combination marka aynu raacayno qaybtiisa koowaad psycho maxaa la yiraahdaa ereygaas waa maadada markaynu eegno af Soomaali ahaan maxaa la yiraahdaa cilmi iyo nafsi labada shay aynu isu keenaynaa sida ay isu saameynayaan ama sida ay marka in English kala eego macnahan isu leeyihiin. Psycho waxaa la yiraahdaa sound ereyga psycho hadan isu saddex macno aynu ku sheegnay macnaha koowaad waa maxay psycho macnaheedu waa sound nafsad cilmi nafsi sound waa nafsad waa psych sidoo kale waxa lagu micnayaa inay tahay waxaan sheegay waxa la yiraahdo spirit sidoo kale waxaan sheegay mind. So whenever you need to know exactly the right meaning of psycho is what soul spirit and mind. That's what waa micnaha aan qof kasta kaga baahanahay inuu ogaado marka aynu is weydiino labada erey oo Greek word-ka la isu keenay ereygiisa koowaad micnaha uu leeyahay ka labaad aynu soo qaadana maxaa la yiraahdaa waa logy. Fine asagana logy maxaa la yiraahdaa ereyga logy ama waa erey asal wuxuu ka soo jeedaa Greek word ee la yiraahdo logos micnihiisana maxaa la yiraahdaa science. طبعا ereyga science hore ayaad u soo barateen maxaa la yiraahdaa naftirkiisu waa erey Greek word ah the word science is a Greek word. Fine macnihiisuna waa knowledge ereyga logy marka aynu rabno inaynu micnayno waxaynu ku micnaynay science. Fine oo micnihiisu yahay erey asalkiisa kana waa Greek word micnihiisuna waa knowledge sida awgeed waxa isku micno ah ereyga logy wuxuu la micno yahay science wuxuu la micno yahay knowledge. waxaan u baahanahay qof kasta marka aynu weydiino inuu inta odorosi kara ama inta inuu sheegi kara waa loo baahan yahay. Okay marka xagga aan kaga soo tagay qeexitaanka ereyada cilmi nafsiga qaabku isu saaran yahay waxaad ogaataa marka the study of these words. Fine the study of these root words barashada ereyada noocan qaabka ay isu saaran yihiin cilmi nafsiga sida uu isu saaran yahay oo psychology loo yiri goorma ayaa la ogaaday. Okay goormaynu ogaanay waxa dunidu ay ogaatay qarnigii 16aad markaynu is weydiino goorma ay dunidu ogaatay in psychology oo qaabkan isu saaran yahay waxaynu leenahay
waa 16th century waa qarnigii 16aad ogow qarnigii 16aad qaabka psychology uu u sameeyay yahay ama erayadu isu saaran yihiin ayaa la ogaaday culimada barata cilmi nafsiga xilligaas oo aynu tilmaanay oo ay psychology psycho u garanayeen soul spirit and mind logosna u garanayeen macnaha kani waxa sidoo kale ay ogaadeen waxa sidoo kale ay darseen in maskaxda bini'aadanka ay tahay qayb jirka bini'aadanka ka tirsan laakiin shaqo ahaan ka baxsan maxaynu ku tilmaanay inagas was seen from distinct from the body waxay u arkayeen distinct from the body xubin jirka bini'aadanka ka baxsan marka la eego shaqo ahaan marka loo eego fine macnaheedu koritaan ahaan sida aynu ognahay waxaynu soo aragnay laba eray ama laba xaaladood oo jirka insaanka uu ku korayo maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa growth and development okay maxaa la yiraahdaa growth waa koritaanka jirka bini'aadanka uu sameeyo jirka bini'aadanka anigu marka uu dhasho marka uu hal sano gaaro ilaa marka uu weynaado jirkiisu waa uu sii kobcaa waa uu sii weynaada waxa koraya maskaxda ma ahan jirka weeyaan koritaanka jirka insaanka uu sameeyo waa growth laakiin maskaxda way kortaa uma korto sida jirka oo kale cabirka ma sii ziyaado laakiin se koritaanka maskaxda waxaynu u naqaanaa development eriga development waa koritaanka maskaxda marka aynu ka hadlayno contextka ama bay'ada cilmi nafsiga koritaanka jirkana waa growth sida ay saynisyahanadu u yaqaanaan midna la socda waxaa la yiraahdaa a word of English doesn't make sense but it makes sense in the environment and in the sentence eri kaligii u taagan micno ma abuurayo marka eriga development aynu u eegno sida injineerada ay u yaqaanaan micno kala soo baxaya caafimaadka markaynu u eegno micno kala soo baxaya ingiriiska marka loo eegana micno kala soo baxaya waxaynu ka hadlaynay it's our environment waa contextka naga ama maadada cilmi nafsiyahanadu sida mustalaxadkay u micneeyaan halkaas igala soo insha Allah fine waxa laga yaabaa Ustad British markuu ku dhigayo luqadda Ingiriiska eriga development micno kale inuu kugu sheego oo ka duwan micnaha aan ku sheegay cilmi nafsiga maxaa in kala duwaya asagana luqadii ku baraya anigana cilmi nafsiga baan ku baraya hore waxaynu u sheegnay in maadada cilmi nafsiga laga dhaxelayo field kasta sida awgeedna haddana mar kasta waxay leedahay micno iyada u gooni ah oo unique meaning ah marka loo eego maadada taasi waxaan rabaa marka inaan soo koobno laba mowduuc hadda aan ka tilaabay oo aan idinka rajaynaya inaad ila socotaan fine micnaha koowaad ama jumlada koowaad oo aan ka tilaabsaday waxay ahayd maadada tani cilmi nafsiga la yiraahdo asal maxay ka kooban tahay mid kasta oo kamid ah waa maxay micnaha uu leeyahay koritaanka maskaxdana maxaa la yiraahdaa koritaanka jirkana maxaa la yiraahdaa in summary you have to understand sidoo kale waxa aan tilmaanay maxay ahayd habka maadada tan ay u samaysan tahay sida erey cilmiyaadkaasi ay isu saaran yihiin goorma la ogaaday qarnigii 16aad markaasoo loo arkayay maskaxda bini'aadanka iyo jirka bini'aadanka inay kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin tusaale kale hadaan raaciyo waxay ku kala duwan yihiin jirka bini'aadanku wuu koraa wuxuu ku koraa irsaaqada adbadarka ama cuntada u taqaanan ee arlada ka soo baxa laakiin maskaxda waxay ku kortaa cilmiga xagga samaawaadka ka yimaada tusaale kale oo qiimo badan qofka bini'aadanka ah wuxuu ka kooban yahay laba shay wuxuu ka kooban yahay wax la yiraahdo ruux qofka jirkiisa ku afuufan iyo jir waa body and the spirit sida awgeed magacaadigu aad leedahay Cabdiraxmaan adigu magacaago Faatuma magacaago Khadija yes adiguna Jaamac okay magacyada adinku aad leedihiin waxa xambaarsan waa ruuxda ma ahan jismiga ma ahan adigu marka aad dhimato magacaaga muxuu noqonayaa mate ruuxi maxaa la leeyahay waa dhimatay waa baxday Soomaaliya sida awgeed ogow qofka bini'aadanka ah markasta wuxuu ka kooban yahay ruux iyo jismi dadka qaar waxay dhahayaan markay waxyaabuhu qaar ay tilmaamayaan kaasi jinnigiga baa dhacay jinnadiga kugu jiro ma jiro laakiin se exactly waxa adiga gudahaada ku jiro waxay tahay ruux ilaahay jirkaada ku afuufay sida awgeed marka shaqada maskaxdu ay qabanayso waa motorka ama mashiinka hagaya jirka intiisa kale hadba sida maskaxda ay u fikirto ayuu jirkan u shaqeeyaa oo maxaa la yiraahdaa how you think is how you act sida adigu aad u fikirto ayaad u dhaqantaa hadba hab dhaqankaaga sida uu yahay
waa sida uu yahay hab fikirkaaga qofka insaanku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo hab fikir iyo hab dhaqan hab dhaqanka waxa hogaamiya hab fikirka maxay ka dhigan tahay shaqada maskaxda sida ay tahay ayuu ficilka insaanku noqonayaa okay haddaan marka la qeexno waxaad arki doontaa maadada tani 40 jeer waxaad arkaysaa malaayiin qeexitaan kala duwan aan waliba isku mid ahayn sababtuna waa raacin doon wax qeexitaanada kala duwaya maadada haddaynu qeexno maxaa la yiraahdaa waa scientific study of behavior and mind qeexitaanka la soco mustalahaadka aan tilmaamayna si gooni oo la soco dhowr boor baan ku soo celiyay meelo badan waa ku sheegay inta hawsha socotana waynu sheegi doonaa maxaa la yiraahdaa psychology waa scientific study maxaan ku iri scientific maxaan sheegay scientific okay scientific study waa qeexitaanka maadada iska ilaali sidaas ayaan kaaga baahanahay inaad igu sheegto qeexitaanka maadada waa maxay what is a psychology it is a scientific study of behavior and what and mind yeah thank you mind maadada waxa la yiraahdaa waa barashada waxa la yiraahdaa cilmi nafsi qeexitaan ahaan qeexitaano dhowr baynu arkaynaa mid kastana meel baynu ku salin doonaa hadduu aan leeyahay waa scientific study of behavior and mind waa barashada cilmiyaysan that is a scientific study behavior and mind shaqada maskaxdu ay qabanayso iyo dabeecadu bini'aadanka